السلام عليكم. xilliyada iyo gooraha adagi waxay muujinayaan qofka aad tahay si dhab ah ay u muujinayaan shakhsiyadaada weyn ee ka hooseysa jirkan iyo lafahan yaryar kor u qaad madaxaaga xilliga dhibta alle xagiisana u carar hana ilaabin in samirku yahay qaraar balse markaad gaadho dhammaadkiisa aad helayso dhadhan la dhadhamiyey kan ugu macaan ilmada indhahaaga ka tir oo ka masax korna uga kac boorka lugahaagana dib ugu istaag imtixaanka aad dhacday ama aad dhibco hoose keentay ma ahan qofka aad tahay maadada iyo casharka aanad fahmin kama tarjumaysa shakhsiyadaada noolee hankaagii oo gaar himiladaadii jooji labalabaynta iyo walaaca dibna ha u eegin si aadan u kufin xejiso jembiyada ama derbiyada gaariga si aadan uga dhicin noloshaada u samaystiro iyo waxyaabo qarsoon si aad uga badbaaddo fashilka toos goor hore kana faa'iidaysa caqliga hurda xooji nadaafadda jirkaaga iyo midda qalbigaagaba sababtoo ah alle wuu jecel yahay kuwa isnadiifiya cafi kuwa kugu gafa alle sidaas ayuu jecel yahay waaba cajiib kol haddaad dhammaysatay muuqaalkan fariinta ah adigoo diyaar u ah isbeddel nafeed haddaba gaarsii walaalahaaga kale si ay u gaaraan